Saylada xoolaha ee magaalada Boorama ayaa waxaa ku yimid kor u kac xagga kala iibsiga xoolaha, taasi oo welwelgelisay dadkii ka ganacsan jiray xoolaha nool. Mararka qaarkood ayaa waxaad arkaysaa dad aad u fara badan oo doonaya in ay saylada ka iibsadaan xoolo. Dadka ku dhaqan gobolka Awdal ayaa waxa ay aad u isticmaalaan xoolaha nool, taasi oo ay u isticmaalaan hilib iyo caano. Xoolaha nool ee ku sugan gobolka Awdal ayaa ah ilaha ugu waaweyn ee laga isticmaalo gobolka. Mar aan dadweynaha la dhex qaadnay mikrofoonka sheegeen waxa ay ka cabanayaan waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan. xoolaha abaartii baa soo dishay hilib badanna ma leh halkii gegada halkaa horta runaantii naf ma hayno ilaahay baa nafaya laakiin suuqa naf kuma hayno xooluhu way nagu qaaliyoobeen wayna isa seegayiin halkaa intaan ka siinayna hilibka iyo maaragtay saliibada way isa seegayiin halkaa saylada intaan kaga iibsanayno gegada xoolaha iyo intaan siinayno hilibka qiimii baa isdhaafay qiimu aad buu isku wadaarsan yahay khasaarana waan ku qabnaa kolkay gegadiina xoolaha nagu kaceen hilibkiina aan maaragtay halkiisii gaadhi waa u socon waayay waliba taa waxaa noo dheer dadkii oon iibsanba karayno lanooba soo geli waa cadkii nagu baariyihiin taasina way noo dheertahay kolkaa waxa weyn annagu dadtaasaan neefka misaasitiin neefka hilibka fiican leh ilaa 1,200 1,300 baa siisan oo $7 wax halkan ka soo baxayana ma kun baan ka dhignaa neefkaasi $300 annagayna dul yaallaan ahaatee kor u kaca ku yimid xoolaha nool ayaa waxa ay hakad geliyeen kala iibsiga xoolaha nool. Maxamed Xasan Ismaaciil, Higsi News, magaalada Boorama.